بسم الله magacaygu waa Deeqa aadan muuse Deeqa Afro waxaan fiidiyowgan duubayaa 12 bisha 7 2017 maalin Jimca waan salaamayaa dhammaan inta fiidiyowgan daawata ama dhageysan doontaba waxaan inagu salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan rabaa halkan inaan kaga hadlo arrin aad iyo aad muhiim igu ahayd runtii aan muddo badan ka fikrayay ilaa yaraantaydii ilaa haddaba ilaa markasta aan aad uga fikri jiray waan dareensanahay runtii in kuwa badan oo idinka midow runtii aan ku yara aragti duwanahay laakiin muhiimadeedu waxay tahay horta anigu waxa aan rabay inaan soo gudbiyo taasaa aniga aad igu muhiima sidaan la soconaba adduunyadan waa lagu soo kala horeeya waana lagu kala dambeeya aniguse waxaan hadda maanta halkan usoo fadhiistan codsanayaa waxay tahay in ilaahay subxaana wa tacaala maalintuu i oofsado oo kolley dadna waa iga dambeyn doonaa dadna waa iga horeyn doonaa wax iska caadiya laakiin anigu waxa weeyaan waxaan codsanayaa maalintii ilaahay i oofsado ee ajasheedu dhammaato ee aan dhinto inaan wax qabri alle iyo qodin inaan lay aasin arrintan waxaan ka fikirayay runtii muddo aad iyo aad u fara badan dhinaca diintan ayaan la iila cararin markiiba sababtoo ah waxa weeyaan diinta islaamka oo aniga aan ku dhashay ee aniga aan jeclahay ee aan ku dhiman doono insha allah si wanaagsan uma aqaano ilaahay subxaana wa tacaala ha ii kasto inaan si wanaagsan u barto insha allah mana garan karo runtii culayska ama cadadka ay ka qosayn karta arrintan runtii anigu ma garan karo hadda mid ii cabiran ma aha dhinaca diinta weli kuma eegin laakiin dhakhaatiir badan baan la xiriiray arrintan macnaha waxaa ka suurtageli karaa waxaa ka macquulka ah siday u dhici karto waxaweyaan runtii inkastoo dhakhtarkii ugu dambeeyey runtii uu iniyad jebiyey oo igu yiri adiga waxaad ka baqaysaa qabriga iyo waxaad ka baqaysaa dhuwa xabaalo laakiin isagu siduu ii sheegay in isagu maxaa la yidhahdaa uu saxiixay markuu isagu dhinto in la gubi doono subxaan allah marka aniga ahaanteeda fikradeedu waxay tahay iyadoon wax diin ah meesheeda loogu tegin oo la ixtiraamayo oo maxaa la yidhahdaa aan diinta meesheeda loogu tegin haddana in fikrad ahaan iyo maxaa kula system ahaan bal waxa arrintan ka suurtageli karaa in la eego adduunka maxaa la yidhahdaa dhul la-aan kama jirto adduunka dhul badan baa iska bannaan dhul kasta wuxuu waddan kasta wuxuu leeyahay dhul aad u tiro badan oo lama degaana oo meydka la dhigi karo meeshii laga caasi lahaa in meydka meeshaas la dhigo dhul kasta waddan kasta dhulka ka bannaan in meydka la dhigo had kadib xitaa haddaa fiirisay systemka ay wax u socdaan waxa weeyaan dadka haddaad eegtid dadka sii gaboobaya iyo dadka soo dhalanaya runtii waxaad moodaa dadka sii gaboobaya inay aad u tiro badan yihiin oo runtii ay aad u yaraatay dhalmadii iyo tarankii inuu hadda kadib xitaa aad isu yaraan doono khaasatan hadda waddamada reer galbeedkaan joogno inuu aad wixii isu yaraan doonaan halkaasna ay fursad tahay oo runtii ay kasoo bixi karto dhul aad u tiro badan oo dadka dhinta la dhigo ama lagu kiib gareeyo meesha laga aasi lahaa qaar baa oran doonato culayska soo food saaray ay ka sheekeynaysaa waa maxay runtii anigu alxamdulilah rabbilcaalamiin waan caafimaad qabaa laakiin soomaalida waxay tiraahdaa wixii aan la huraynin horaa loo qabsadaa marka aniga waxay iga tahay wixii in hore loo qabsado unba iga tahay waana waxaan la huraynin waana wax aniga igu taagan inaan wixii aniga fikirkayga aan ka dhiibto maadaama waxaan anigu rabo weeyaan anigu waxaan kasoo horjeedaa oo halkaan usoo fadhiyaa ma rabo qof kasta oo iga geeri dambeeya arrintan qusaysaa
anigu in lay aaso diyaar uma ahi qof kasta markuu intuu nool yahay ayuu magaranaysaa wax ka hadlaa wax codsadaa wax dhihi karaa inkastoo aanan rajo aad u fiican aanan ka qabin oo xitaa aniga hooyadii i dhashay oo adduunka ilaahay iigu jecel yaraan baanu ahay hooyadee labada daandhood bay iga jeceshahay cimrigeeda ilaahay ha raajiyo hadda kahor maraan weydiiyaan ku yidhi anigu hooyo ma doonayo haddaan dhintay lay aaso waan ka dhaadhicin kari waayo waxay ugu tiri maa waxaa ka baxo dad iga horreysidna waan ku asturayo awalna maxaa layidhahdaa aan qofba mar farta ka xiri jiray waa dad iga nolol dambeysay u sheeg dadka qabriga neecahay yaa lay gelin laakiin hadda maanta anaaba halkaan lasoo fariistay ilaahayna taladan saaranaya insha allah inaan lay aasin oo aan dhulkaas anigu hadda aan ku dul qorxoonahay oo aan ku dhashay oo aan ku qurux badanahan joogo hoostiisa inaan lay gelin baan ilaahay ka barya dadka waxaan aad iyo aad uga yaabaa dadka xalaala soo kala yaacaan mar allaala marka qofku dhintaa waxaad arkaysaa waxaasa usoo kala ordayo meelkiimadan la aqoono ma jarafadiya balaayi horta waxay wax ku xabaalaan xagge u yaallaan waxaan dhihi lahaa naxariis darrada iska daaya qofku markuu dhinta xalkana hala keeno waxa weeyaan anuga hal gabar hadday imaydho isokay حتى dadka mayra intay soo kala cararaan bay maxalida dadka isugu tagaano jiidaan dadka meedka ah anigu waxa soo dhan ma rabo barafuunada iyo cadarada aadka u udgoonna ma jecliya yaan laygu shubin surkana yaan layga xirin qabrina yaan lay gelinin qofka qabri iyo qoda qabri igeliya maalinta yawmal qiyaamana haystaan cafiin ajar iyo xasanaadna ka heli maysid xabaashayda qofkii ii soo ducaynaya ama si wanaagsan waxa weeyaan ii wanaajinaya deeskuud laakiin in aniga la xabaalo oo dad ciidigu wajiga iga shushubaan ma rabo subxaanallah ilaahay baan ka magan gal ilaahayna waxaan dacwo kaga ahay dadkiisa iyo qabriyada anigu khaasatan waxaa ninka qofku wuxuu yidhi qof baa yidhi baa layidhi qof aniga yiri dad iska reeb anigu waxa weeyaan arrinteeda aan ka hadlayaa waa taas ma rabo in lay aaso dhul qurux badan baan ku dhashay waxa weeyaan xitaa dhulka aadaan cabirto oo dhulkayga aan dib ugu noqdo meesha aniga aan ku dhashaan jeclaan lahaa in geed lay saaro anigu waxaan ku dhashay meel booq la yidhaahdo dhinaca Ethiopia ah hooyo ku dhalatay aabahay buuhoodu ku dhashay dhulkaas aan sheegaya dhul aad u kala fog ma aha dhul maxaa la yidhahdaa hawd aweeye geedo badan leh roob baa ku da'a maalin kasta maasha allah waa cadar kulayl male dhulkaas geed halay saaro qofka iga dambeeya ayay arrintan qusaysaa aniga ilaa xabaalo ma rabo ilaahay baan ka magan galay ajar iyo xasanaad ka heli maysid dadka xabaalo waxaan oran lahaa naxariistu ha idigu soo duxdo weligay allah xitaa dhulwacayar oo korkayga saaran xitaa gacanteeda uma qooreen ku dilo iska mid qof la xabaale wallahi wixii dusheeda saaran cayaantan qof inaan dhaamaani ina xitaa gacan ku taabta laga yaab naxariistu ay idigu soo degto dadka yaa la xabaale xalka la hala keeno maxaan ku dhahay arrimaha diintii waxa yaa la ila cararin yan markiiba la ila boodin arrinteedu saas weeye way caddahay waxa aan ka hadlayaa waxa aan rabin baan sheegayaa أجري حسنات كيلي ميسان قف كمان تدوغا أو محل هذا ويلا سوكر دوجي